garab haween baan ahay heer qaran baan ahay qabyaalada hal la daayay dadku ku leeyahay anu gabadh Sacad Muuse Cabdalla Siciidaanay xisbiga wadani maxaan u qabanayay anu ma guriga Ciraan jaariyad ka noqonayo masaxay waxaan ka shaqaynayay waxa weeyaan soo maaha inaan beeshan ka soo jeedo wuxuu kaga soo kordhiyo cod oo uga keeno u shaqeeyo soo maaha teetalkaygii iyo shaqadaydii dumar sool u dhashay iyo habla cirigaaba u dhasho habriyoonisa ayaa loo diray allay badiyo Faraweyne iyo gobolladan inuu ka soo jeeday aniga markaa maxaa la doonayaa inaan qabto shaqadaydii hablahaasa loo dirtay boqol tacadiyo kale caynkaas ay ku dhacay guriga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro gabadhiisa ayaa dumarka magacowda haday dumarka magacowdo aniga guulwadanimada waa laygaga qurux badan yahay ma guulwadeeyo nimaan guulaysanina waa bigooda cuqdatu nafsi bay sheekadii ka qaadeen dhibaato badan baa arintii ka dhalatay waxaanu aragnay inaan horta waxa xisbiga lagu joogaana anu horta qabiil halkaasaan iska dhigi lahaa laakiin saddex baa lagu galaa horta madaxtooyada saddexdii midna ma laha xisbigan ka yimi waxa weeyaan kalgacalna ma laha dadka jooga tabis ma laha oo haddaan sanad maqnaado oon ka maqanoon cadho ku maqanay halkeed ku maqantay leeyma odhanayo haddaan waxaan ku yidhi kalgacayl ma laho kalgacayl lagu soo dhawaynayo sidii reeraha dawladda ku jira maanta dadka u ahaayeen ma laha ixtiraam ma laha qadarin ma laha waxaan ku yidhi lagu soo dhawaynayo ma leh waxaan ku yidhi nin waliba dhinaciisu isu buulaya sidii waxaad kursiga lagaa cishanaya ama aad kaan ku fadhiyaba layga riixanayo ayaa lay tuqaantuqinaya anigu markaan Muuse ka imi Muuse muu haysan xisbide wadani baan ka tirsanaa tacab badan baa iga galay xisbiga muddada inta leeg baan ka mid ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waa nin shaqaynaya waxaan soo sheegaya in Ciro inta la joogta rag iyo dumarba ay boqnaa jarayaan beenna u sheegayaan ko oran maayo anu Cabdiraxmaan adoon guulaysan waad guulaysatay hadiya jeerana dadka xisbigaaga jooga heesa aanay leeyihiin waxay oran doonaan kolkay caawa aniga arkaan guushi bay dhaaftay iska daaya guusha hadduu Ciro guulaysto helo anu xisbigii waan ka tagay kama xumi waan hambalyeynaya hadduu Muuse helo oon u tagayna hana hambalyeeyo ta kale hangaraarac laguma dhutiyo waa halhaynta xisbigayga heestan yar u qaadan ninka xidigaha geeska ugu yar yaa waxaa taraysaa yara rag iyo dumar ruuxa dhaqaaqaba waa loo qaadaa heestaa anigana caawa igu soo dulduuba oo soo qaada heestii waxaan saydiin sheegay inaydaan cid u baahnayn dad jeclayn guulo uma baahnidinba inaa guulaysataan uguma baydaan tala gelinba balle ninka laakiin xisbiga jooga ee gudoomiyaha baarlamaanka ah waa nin shaqeeya orda aan seexan soo jeeda orad isdhigaya Cabdiraxmaan mid baan ku dhaliili lahaa tiina kuma dhaliilayo waxna ma oranayo laakiin waxaan leeyahay aqalkaaga gudihiisa waxa ka socdaan uga tagay xisbiga naftaada u sheeg sidaan hal ogaado teetalkaygii heer qaran iyo xubinimadaydii golaha dhexe labadiiba kii membershipkii iyo kaarkaygii golaha dhexe labadiiba waa kuwa